وهو waxaan isku dardaarmaynaa Rabbi subhanahu wa ta'ala in laga cabsado dardaaranka Ilaahay inoo dardaarmay Ilaahay meel inoogu xariiqay waxa weeyay meel kasta inuu joognaba Ilaahay inaynu ka cabsano waxaan yaradu lisaagi doonaa bisha Shacbaan markay soo gasho Nabiga alayhi salatu wasalaam muxuu la iman jiray xaaladiisu sayhay حالك النبي عليه الصلاة والسلام يوحنا دول الساقي نبيش شعبان والله لا يلبش شعبان رنتي وابلاد ياضو قيمة بدن نبينا عليه الصلاة والسلام وحصي دتكو بين أن لسعن ويدتكو إنه وإن بشهر رجبكو مشغول صني إنه وإن رمضان حق الكوتا جيسا وحبا لقيا وبشر الليلة ولا جيابا marka nabiga alayhi salatu wasalaam markii bisha Shacbaan ay soo gaadho sida Aisha radiyallahu ta'ala anha ay tilmaamayso waxa weeye nabigu inuu bisha aad u soomi jiray Aisha waxa leedahay xadiiska Bukhari wariyay kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yasum hatta naqula la yufdir wa yufdir hatta naqula la yasum وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمال صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صيامه منه في شعبان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان وعلى عائشة رضي الله تعالى عنها نبي عليه الصلاة والسلام مركا لقاها الله يصوم كصنها ما المها قاروا صومي إلى أن سنرى لما نبي عليه السلام صوم كابة وشين مايو maalmaha qaarna soomka waa iska daynay ilaanu ma qaadano mala nabigu doorkan inuu soomo kuma talagalin ama qorshaha ugu jirto nabigu alayhi salatu wasalaam inuu soomo walaalayaal nabigu alayhi salatu wasalaam sida ay Aisha inoo tilmaamayso bil dhamaanteed wada soomay oo aan Ramadaan ahayn ma jirto intuu bilaabay uu dhameeyay oo Ramadaan soom ku bilaabo ku dhameeyay bisha Ramadaan u baajirta لكن عائشة واحد تلماميسة رضي الله تعالى عنها بش الشعبان بيلو كالصوم بضنايو كلام أنا رقم الله عائشة رضي الله تعالى عنها بش أدو صومي تشري معظم كيدو صومي تشري بقى ما لما يرى كومن بكتك تشري بقى بش انت هذا بدن نبي عليه الصلاة والسلام وصومي تشري ولما مركلي يما هي شعبان كالسمر كاللقارو نبي عليه الصلاة والسلام وحوقف فايدين تشري بش هاي صومه حكمته كجرتا maxay tahay حكمته كجرتا waxa weeyay nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu ku sii talagalaya oo leeyl sii qaadanaya bisha qiimaha badan ee aadka u weyn ee ku soo wajahan oo bisha Ramadaan bisha ka dambaysa waa Ramadaan marka wuxuu u baahan yahay inuu soomkii la sii qabsado nafta uu sii baro naftii toobarka fiican qaadatay oo ku tala gashay in Ramadaan ay soo gasho marka soomkii Ramadaan la soomayo culays badan qofkii dareemi maayo xikmadda uu weyn nabiga alayhi salatu wasalaam kala haamida weeyay Usama radiyallahu ta'ala anhu ayaa wuxuu leeyahay waa xikmad labaad baynu tilmaamaynaa oo nabiga alayhi salaam uu sheegay وحولي أسامة رضي الله تعالى عنه نبي أيام وحويديين لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان رسولك الله يكمان أرق أنت كصوم تبش شعبان أدقوا بله كلك سوم يكمان أرق محايتي له بش المحاي لقارتهاي مكان النبي عليه الصلاة والسلام وعويري ذاك شهر يغفل الناس عنه bishaasi waa bil dadku iska halmaameen ilaaween dadka badankoodu bisha way ilaaween marka waa fursadaas ka faa'iideysanay cibaadaduna waxyaabaha had iyo jeer qiimaha ku yeelata waxa kamida xilligada had iyo jeer dadku ay cibaadada ka mashquulaan ee dadku baan dhaadanayn ruuxa ka faa'iideeyaa waa ka ajri badanaya xilliyada umadu ay soo wada jeedo bishan dadku ma daadana mana dareensana waxa laga yaabaa marka in badan inaan cibaadeysanba ama ay kaba mashquulaanba tilaawadii quraanka haday tahay
cibaadaadka kala duwanaa hadday tahay salaadihii soomkii sunnayaashii faraha badnaa marka taasaa keenaysu leeyahay maadaama dadka ay ka mashquuleen oo istiyaaris ay galeen isku diyaarinayaan Ramadaan in aanu aan bishana ka faa'iideeyo marka runtii aad bay muhiim u tahay inuu si gaar ah waxay u xusaan maalmaha ciida ee dadku farxadda la wada mashquulaan ruuxa maalinka cibaado u jeestaa inuu ka ajri badan yahay maalmaha kale aan maalmaha ciida ahayn waayo maalmaha waa laga mashquulay cibaadadii dadku arrimo kale ay ku mashquuleen nabiguna calayhi salaatu wasalaam taasoo ka faa'iideynay waxa kale wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaam وهو شهر ترفع فيه الأعمال بشني وابل عمل كر لو قابا وحويان ملائكة بقى ترتور بحين إنها قد بنيسا مركات تضبات كسبا وي قد بيان سنة كينا مربي قد بيان سنة كوحا اللي قد بيان أعماشا ضدكو أي سميان دمانت وحاصو فيلا وحا اللي قد بيان بشا شعبان marka wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam bisha shacbaan waa bisha acmaasha la dalacayo la qaadayo la gudbinayo xagga sare la geynayo marka waxaan jecelahay buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wa hab an yurfa amali wa uhibbu an yurfa amali wa ana saa'im waxaan jecelahay buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam amalkayga in la kor loo qaado anigoo sooman وأنا أرى النبي عليه السلام كي لو يديني ما حد بيش ما حد تطبعت كأصلا أنت خميسة يو سنينتا إذا نترى كلهم بكون جوابي وما المها تطبعت كعمل كلا كوري له واحد شعله يعمل كي إن الكوري له أنا جوا صوما ما قيمة قالوا لي هاي صوم قيمة قالوا لي هاي النبي عليه الصلاة والسلام مركا حكمة ده صومه بيش شعبان ونوش شاقي صوم كانوا بديو والله وضع رماد يسصارن تذكو إلاوي عبادتي لقى مشغولين قضب كلابات ما دام بيشن عماشا لا دلعو او كر لو قادو وحق سر لغيو waxaan ka faa'iideysanayaa amalkayga in la qaado anigoo sooman marka waa arrimaha runtii u munaasaba ruuxu inuu ka faa'iideeyo ay tahay xadiiska waxaanu ka arkaynaa dhowr arrimood qodobka ugu horeeya xadiisku inoo tilmaamaya waxa weeye qiimaha ay leedahay in laga faa'iideeyo waqtiga ya xilliyada kala gedisan ya qiimaha ay leedahay cibaadada qarsoon ee aan lagu la ogeyn cibaadadu waxay qarsoontaa marka umadu ay mashquulaan ee dadku ay mashquulsan yihiin مثلا salaadaha marka faralka laga yimaado salaada ugu qiimaha badan leh waa salaatu leylka dadka badankoodu uma soo jeedaan in yaro kooban oo Ilaahay u naxariistay ayuma salaadaha tukado joogteeya waa naxariis Ilaahay bay ku timaadaa taasaa keentay in ka qiimo badato salaadihii kale sunnayaasha ahaa waayo salaadaha kale waxa soo gali kara waxa loo yaqaan istusnimada ama ismaqashinta laakiin salaada soo ma gali karto dad ma soo jeedaan istus cid iska galaya ama iska iibinaya ma jirto marka xiliyada acmaashu had iyo jeer dadku ay ka mashquulaan waxa ku badan lillaahiyada ku badan taasaa keenaysa amalkaas inuu qiimo gaar ah yeesho waxa kale oo xadiiskaynu ka qaadanaynaa كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان نبي بشا إنه عاد صوم الترين عائشة وعلى رضي الله تعالى عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان نبي مو صوم الترين بلا هاي بشا شعبان صوم بالكلاو كبرا أو صوم الترين مجد حاجة صوم كما كان نغطو شعبان وعاد صوم الترين فإنه كان يصوم شعبان كلها وعو صومي تربيل هذا شعبان بلن كده أي صومي تري شعبان سيدي ودنتهي أي نبي عليه الصلاة والسلام صومي تري وعكرانو كقادرين حديث كعب ولقى فهمية ما دام عمل كي كر لو قاضي وعمل كي لقد بنا أيو إن هلكا سيتالو إن رب سبحانه وتعالى ذلك دنبك كرافي غفران الذنوب والنبي عليه الصلاة والسلام بات المامي هبينك شان يطمناد والنبي عليه الصلاة والسلام حصي إن ددك دنبك لغا دافيو النبي عليه الصلاة والسلام بات المامي
marka shacbaan waxyaabaha la gaarka tahay ay ka mid tahay marka habeenka 15 ay tahay dadka in dhamaantood dambiga laga dhaafayo waxaan laba qof ka ahayn nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay inna allaha ta'ala la yadli'u fi laylati nisf min sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil mushrikin wuxuu leeyahay nabiga alayhi salaatu wasalaam habeenka 15 sha'ban ilaahay umadiisu daalacda dhamaantood dambigooda ayuu dhaafaa laba qof mooyee waa gaal iyo ruux kale qalbiga wax ugu haya ruux kale qalbiga ugu haya ilaahay dambigiisa dhaafi maayo nabiga alayhi salaam saasu tilmaamay idan maadaama shacbaan ay soo galnay in badanna la istijiito waliba doorashooyin iyo ololayaaliyaha hawlan laga soo baxay dad badan ay isgaareen Soomaalina imaka aad moodo in xabadu iskugu wada jirto runtii hadaa doonayso in ilaahay amalkaaga aqbalo umada wada cafi wixii aad wax ka tirsanaysana cafi wixii aad ogeyn wax ka tirsanayeen cafi weydiiso si rabbi subhanahu wa ta'ala amalkaaga ilaahay u aqbalo oo ilaahay uu kaaga toobad aqbalo oo ilaahay dambigaaga u dhaafo taa laga helo nabiga kaleey salaam wuxuu ka xariiqay gaalna inaan dambiga laga dhaafaynin ruux kale walaalkii qalbiga wax ugu haya ama caloosha wax ugu sidana ina rabbi subhanahu wa ta'ala dambigiisa dhaafaynin ilaahay ka heshiyaan iscafiyaan ilaahay dambigooda dhaafi maayo marka wana walaalkaaga aad cafisaa qalbiga wax ugu hayso waxa weeye si adigana ilaahay ku cafiyo walaalayaal culimadu waxay leeyihiin شعبان 15 كذا هدي اللي سوق قارم اللي سومي كرا مسألة ما سومي كراين 15 كذا ما هدي أي بلامان إلا صوم ما بنات ما بنانا والنبي عليه الصلاة والسلام حديث ما كسرنا ضيع إذا انتصف شعبان فلا تصوموا شعبان هدو كلا برجارو لسومي ماي مركل لو قال لي هاي إلا صوم وبركة صوب بلا بنس حقه هرات كصوب بلا بس هو اللي قال أما حاجة هرانا كسوم توال أوجلي لكن حاجة هرانا هذا كسوم ويدو شرية طبعا كدم بها دين لجارو إن الصوم تام بنانا خاصة واحد الإسلام فقسي هاي لبدا عشاء قدام بيا شعبان إلا الصوم ما بنانا ولما مالك قدام بيا إيه صدنا يوم شك الله يقام إلا جيش كسية من رمضان بلا وجدي بقى مسوى شعبان آخر كده إذا إلا الصوم ما بنانا نبي عليه الصلاة والسلام أنت واديدي marka ayadana ku talo galo adoo haysay in la soomayo bishan waxa hadan la akhrisataa xadiidka guud ka waramay bishan in la soomaa wuxuu inoo tilmaamay nabiga kaleey salaatu wasalaam soomka inuu soo bilaaban jiray bilowga shacbaan ba inuu soomka bilaabi jiray xadiidkan kalena wuxuu tilmaamayaa xagga hore hadad ka soomi weydo oo xagga dambe la soo gaaraa ina soomtaa inaanay banaanayn marka labada arimood ba isla akhri waajibkeena saaran waxa weeyay bishani waxay u baahan tahay bisha ka dambaysa in loogu diyaar garoobo hadda in waalka la sii xulaa loo baahay wixii dambi ka dhacay in ilaahay aadam dhaaf weydiiso hadda toobad keento adigoo diyaar garoobay qalbigaaga xalay nadiifiyay si fiican ugu tala galo isku diyaariyay in shacbaan ku soo gasho laakiin adigoo heeriyaysan oo raran oo dunuub socota haday ramadaan ku soo gashaan u jeeda haday ramadaan ku soo gasho waxa la ka faa'iideysan karaysaa ma jirto inta culayskii ku saarnaa iska dhigaysaa waqtiga daa doonaysa in ramadaan aad ka faa'iideysato oo mawsimka cadimka Allah hayna gaarsiiyay aanu ku baalmaday doonayso hadda ayaa loo baahan yahay inaad ku sii tala gasho hadda ay muhiim ay tahay inaanu ku sii tala galno oo aanu sii diyaar garowno oo weelka aanu sii xalanno dhiishan aanu sii culanno si aanu uga faa'iideysan lahayn bisha ramadaan taasna waxay ku imanaysaa waxa weeye hadda qalbigaaga si xalo si nadiif dunuubta ka dhaxbax xaga ilaahay u jeeso toobad keen cibaadada badi adigoo iimaankaagu qawi noqday qawi yahay ramadaanna ha ku soo gasho wa ilaa hadii kale adigoo iimaankaagu daciif yahay ku soo gasho shaydaanka kiisa yaryar ba ka adkaan doona taana lagu tala galo ala sallu wa sallimu ala nabiyyi aamilin liqawlihi ta'ala inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala an-nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما